in badan oo kamid ah markaan daraasad sameynay aan ogaanay in hooyooyinka iyo waxa way waalidiintu ilmuhu markuu jaamacad gaaro aysan dareensanayn in loo baahan yahay wili ilmihii in loo sii hayo loo sii xanaaneeyo waxaan rabaa inaan waqti kooban dulmar yar ku samayno bal horta waxbarashada Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan waxbarashada sare inagoo waliba dhinac taariikhi ka fiirinayna iyo xaaladaha soo martay iyo hadda meesha ay marayso ka maqnaanshahaas kaalinta dawladda ay saameynta ku leedahay waxbarashada sare runtii waa caqabad taagan oo ina haysato oo la dhigi karo caqabadaha aan sheegi doono dhan marka la soo ururiyo waxay ku soo biishoon doonaan dawlad la'aanta iyo kaalinta waxla dawladda oo meesha ka maqan jaamacadda aniga waxa iga go'aanay inaan ardayda soo qalinjibinaysa ku daro badacas insha Allah waayo waxa ku jira gabdho xijaaban waxa ku jira wiilal islaamiyeed waa meel qofka bini'aadamka qofkiisa ku aamini karo xiriyo wax xukumay waxa weeye nin wax xukumay waxa halkan imaanaya deeqo waxbarasho loo taageeray waxaanaya jamciyyada tadaamun waxaalaha asaaskeeda aan waxaalaha ahdaafteeda kamid ah waxa kamid ah in waxbarashada taageerto waxbarashada noocyada kala duwan taageerto runtii waxaan filayay iyo waxaan rabaa kala duwan bisaraha yaani waxaan ka filayn anoo xagga markaan joogno Soomaal waxaan la tusaa wadan burburay dad isdilaya dad meelaha gaajo u dhimanaya من فكرة حقادة ما يستطيع أن أسلها ماشي حد بنادم من ولا عنكره لكن هلك مركب النمت هون جامعنا الله كلام هو أرضنا أرجعني وهمي قدنا أرجعني وهي تيك سنة فكرة أنك قبل نرندي فكرة قدام بعيد runtii qofku markuu kaadir noqon karo oo naftiisa iyo bulshadiisa wax ku soo biirin karo waa marka intuu secondary ka baxo ka bacdina uu jaamacadii galo wuxuu noqon kara qof kaadira oo naftiisana anfici kara bulshadiina anfici kara marka waxyaalaha uu qabanay doodan maanta ayay kamid tahay in balbulshada muhiimadda tacliinta sare iyo sida ay horumarka uga qayb qaadato iyo runtii in badan waxa laga yaabaa dadka inay waswaas badan kaga jiro oo leeyahay waxbarashada wadanka iyo quality-geedu seeyahay iyo marka inaan iyadana ka tilmaamno muhiim weeye xaqaa'iqda furaska jiro aan haysano oo waxa weeye qofku waxa leeyahay nimcada markaad haysatid ma dareentid laakiin markay aad weydid ayaa waxa dareentaa nimcadu inay ka maqan tahay marka furaska jira inay mudan tahay in laga faa'iideysto oo ay nimco tahay inaan isdareensiino inaan ishaarno maxaa taxadiyada oo laga yaabo tacliinta sare inay saameyn ku leeyihiin oo dhammaan bulshada iyo aqoon-yahanka iyo jaamacadaha iyo xukuumadaha bal rabaa inay waxa ka gudbaan mustaqbalka dhow maxaa xuluula oo aan hiigsanana ama waxa weeye la rabaa inaan gaarno si aan waxa waaye tacliin taan ku taamano oo bulshadeena waxaan aaminsanahay dabcan dadka wax ka bedeli kara waa aqoonta yani waxa dib dhigi kara oo gadaal u dhigi karana waa jahliga marka inaan waxaan u baahanahay tacliinta wax ka bedeli kara oo bulshada horumar gaarsiin kara inaan markaas xuluusha iyadana aan ku tilmaamno waxyaalaha aan u qabanay ayay kamid tahay nadwadan waxbarashada sare markay bilaabatay 96 wixii loo soo gaaro ayay ka bilaabanaysaa dib u asaasidda marka waxbarasho sare oo burburkii kadib la asaasay oo jaamacadahan hadda jira ay ka mid yihiin jaamacadahaasi marka waxay sameeyeen kor u kac fiican marka la fiiriyo xaaladda lagu jiray iyo hadda meeshay marayaan iyo say u soo bilowdeen marka la fiiriyo kor u kac xoog leh bay sameeyeen xilligii ugu badnaa jaamacadaha ugu badan hadda wanta ka jira ay sameysmeen oo intii u dhaxaysay 2004 ilaa 2012 ayay jaamacadaha ugu badan ee dalka hadda ka jira ay sameysmeen xilligaa wixii ka horreeyay tiro kooban oo maxaa la yiraahdaa dhowr iyo 10 jaamacad ama wax ka yara ayaa jiray haddana marka laga reebo faracyada jaamacadaha yani guud ahaan marka la isku qaado 50 jaamacad wax ka badan ayaa wadanka ku yaala guud ahaan ma jirto data badan ama xog badan oo la hayo ama xog ururin badan ma aynu sameeyno dhinaca cilmi baaris sidoo kale waa inagu yar tahay in xogaha si rasmi ah loo helo ama si maxaa la yiraahdaa daqiiqa loo helaa waa dhib badan tahay 2013 heritage xarunta cilmi baaris heritage maxaa la yiraahdaa baaritaan ay ku sameeyeen ama report ay ka diyaariyeen waxbarashada sare ee Soomaaliya xilligaa waxay ku sheegeen markay inay jaamacaduhu 50 ahaayeen kuma 50 ku dhawaayeen fatrada ma xilliga inta u dhaxaysa 2004 ilaa 2012 laga soo gaarayay kontonka jaamacado 34 kamid ah intaas xilligaas ay sameysmeen bay dhaheen xilligaas korukac marka si fiican buu socday marka laga reebo koonfurta Soomaaliya oo 2006 ilaa 2009 korukacaas wax yar istaagay
maxaa la yidhahdaa sababo la xiriir dhinaca amniga oo soo gelitaanka Ethiopia dagaalkii maxkamadaha iyo waxyaalo lamid ah dagaaladii dhacay xilligaas baa saameyn ku yeeshay kadib 2009 wixii ka dambeeyay dib u bilowdeen korogacii ku socday waxbarashada sare ee koonfurta Soomaaliland iyo Puntland iyaga wax saameyna kuma aysan yeelan xilligaas ay jaamacadaha ugu badan oo ku yaalaan samaysmeen tirada ardayda ee dhigata jaamacadahaasi qiyaastii guud ahaan Soomaaliya marka la isku dardaro 50 kun aan ka badnayn ayaa waxa weeye ku sii kala haray fursad u helaan inay waxbarashada jaamacadaha ku biiraan tirada marka ardaydaasi waa lagu kala badan yahay laakiin jaamacadaha guud ahaan marka celisaan la yiraahdo wax 50 kun arday ku dhow baa dhigta Soomaaliya guud ahaan jaamacadahaas ku jira ardayda jaamacadaha dhigata tirada ugu badanna waxay ka soo jeedaan ama dhigtaan jaamacadaha aan raahdo ku yaala koonfurta Soomaaliya oo 50% wax ku dhow ardayda jaamacadaha dhigata waa ardayda dhigata jaamacadaha koonfurta Soomaaliya ku yaala tirada ku xigta waxay dhigataa ardayda dhigata oo jaamacadaha Somaliland oo 35% ah Puntland baa ugu tira yar arday ahaan oo 16% kaliya arday jaamacadaha ku jira Soomaaliya ayaa waxay yihiin kuwa dhigta jaamacadaha Puntland waxaan oran karnaa dadka maxaa la yiraahdaa waxbarashada sare ee Soomaaliya waxay sameysay horumar aan la qiyaasi karin xilli marka la fiiriyo marxaladii la soo maray iyo burburkii dawladnimada ugu dhacday ee dhibaatadina heshay iyo sida aan u soo kabanay marka la fiiriyo dhinaca waxbarasho waxa weeye runtii ama horumar la taaban karo bay sameysay waxbarashada sare ee Soomaaliya dadka Soomaalida ah kaliya ma aysan sameyn maxaa la yiraahdaa inay waxbarasho sameeyaan laakiin waxay sameeyeen inay waxbarasho sameeyaan iyagoo aan gacan ka helin dawlad ama aan haysan dawlad awood leh oo maamuli karta systemka waxbarasho ay waxay ku guuleysteen inay sameeyaan system waxbarasho inay abuuraan maxaa la yiraahdaa jaamacado waxbarasho sare inay abuuraan maxaa la yiraahdaa jaamacadahaas inay noqon karaan kuwa ardayda siin kara waxbarashada ay u baahan yihiin oo maxaa la yiraahdaa soo saari kara kaadirka loo baahan yahay dalka inuu ka shaqeeyo soo saari kara qof awoodi kara inuu la qabsan karo jaamacadaha adduunka marka uu tago waxbarashada sare masterka iyo PhD da wixii la midka dhinac marka laga fiiriyo way jiraan maxaa la yiraahdaa dhibaatooyin soo wajahaya oo ama waxyaalo ka dhiman way jiraan maadaama systemkii dawladnimada meesha uu ka maqnaa regulationskii aan shaqeynayn taageero aysan helayn oo maxaa la yiraahdaa mushkilad dhaqaale ay jirtay wax badan oo maxaa la yiraahdaa dhiman maxaa la yiraahdaa soona wajahay baa jiray laakiin marka la fiiriyo xaaladda lagu jira la qiimeeyo iyo hadda meesha wax marayaan waxa la oran karaa waxay ahayd horumar fiican iyo maxaa la yiraahdaa saameyn togan oo ay samaysay ama positive ah oo ay samaysay dadkii u qumay inay sameeyaan waxbarashada noocaas oo maanta hadda waxa weeye arday tirada ugu badan ee dadka wax bartay ee maanta dalka wax ka ah ay ka soo aflixeen dabcan jaamacaduhu waxay ku shaqeeyaan ama waxbarashada sare si guud inoo kala qaadin waxa lagu shaqeeyo oo jaamacaduhu ay ku socdaan ama waxbarashada sare ay ku socoto waa fiiga ama dhaqaalaha ardayga laga qaadayo weeye marka fiigaas ardayga laga qaadayo wax kaafinayo oo jaamacadihii ama waxbarashadii sare ay ku socon karaan runtii isaguna ma aha meelo kale oo dawladda marka laga soo tago waxbarashada sare ay taageero ka heli lahayd way jiri karaan oo tusaalahan ay ka mid tahay qurbo joogtii oo kale oo runtii inta ugu badan dadka wadanka dhaqaale soo geliyo oo wax ku bixiya ayaga ay yihiin haddana waxaa laga yaabaa inta badan meelaha ay wax ku bixiyaan oo dhaqaalaha qurbo joogta ay ku bixiyaan inaysan qayb ka ahayn waxbarashada sare oo laga yaabo meelo kale inay qurbo joogta dhaqaalahooda wax uu ku baxo marka taas halka laga heli waxa la taageero oo dhaqaale oo laga helay ma jirto waxa runtii ayaguna jira hay'ado wadanka shaqeeya oo tiro badan hay'adahaas marka ayagana waxa laga yaabaa in meelo badan waxa la taageeradooda ay ku baxdo oo waxbarashada sare ay sa taageero buuxda ka helin waxa muhiim ah ayaduna oo runtii taageero laga heli karaa waxyaalaha loo yaqaan awqaafta waxaan ka wadnaa tusaalahaan waxa laga yaabaa inuu jiro qof raba inuu wax sadaqaysto oo kale sadaqa jaariye ah buu raba inuu samaysto oo kale marka inaga ka Soomaalihan dhaqankeenu suu badan yahay waxaan aaminsanahay inta ugu badan sadaqada jaariyadu inay ku baxdo inta badan masaajidda in la dhiso oo qofku laga yaabo dhaqaale intuu soo diro inuu dhawax la dhaqaalaha masaajidda la igu dhiso marka sax masaajidka lagu dhiso oo masaajidii waa wax loo baahan yahay laakiin haddana haddii marka baahi waxa la masaajid aysan jirin meelo kale ay ku bixi karto oo sadaqada jaariyada lagu bixin karo oo waxbarashadii ah طبعا way jiri karaan waxa laga yaabaa hadda markaad magaalada banaankeeda kala tagtaan oo kale magaalooyinka oo kale inaad aragto masaajid meel cidla ku yaala oo laga yaabo cid ku tukanaysa inaysan jirin oo qof wax la uu si waqfi ah taqaana u dhisay
haddaan ka hadlo jaamacadda waxa weeye horta jaamacaddu qof nasiib la hela laakiin carqalad ba ardada haysata carqaladda ardada haysta waxay tahay 40 arday waxay ka qalin jabinaysaa Ayna Shamsi 40 waxay ka qalin jabinaysaa Dhoombe kuldaga markaad ku soo qaadid 40 nuur inay ka soo qalin jabis ka soo qaad 220 ka arday 40 arday baa heerkooda u heli karaa boqolkii kale heerkooda wax ma heli karaan intaan oo aqoon-yahan ah oo Soomaaliya u kacday maxaa diiday inay ka faa'iideystaan reer kasta in $1 laga qaado oo canshuur dadban ah oo ardada jaamacadaha looga soo saaro waxa ina helay oo ina asiibay dadkii danyarta ahaa hooyada rida qalaysa iyo hooyada caanaha gadaysa ilmaheedii baa jaamacad waayay ardaygu waxaysta kaliya jaamacadda dhiganaya marka taas musiibada inagu riday waxaan oo shirkadan maanta samaysan waxaan oo bangiga ordaya goldagab dan tusaale uga soo qaado ardada dugsi sare ka baxda reer goldagab jaamacadda kama bixin waayay iyadoo qurba joog la aadin baa shirkadda biyagelinta iyo midda korontada iyo bangiyada si dadban baa dabaqyo laga dhis innaga maxaa inoo diiday waa sadaqa jaariyaaye inaan ardadan boqolka arday ah ee tahriibaysa ee musiibadu ku dhacday ee inagu aan gacmaheena ugu keenay inaad intii noo soo bilfasoor ah ama aqoon-yahana aqra waa la idin weydiinaya aniga waxba jaakadaha iyo xiranina ardada si dadban shirkadaha looga qaado lacagta ha looga dhaho ardada cararaysa ee reerkooda anigu maadaad wiil baan ku farxa waxaan in Axmed Deer muxuu soo diraa saalay 100 alle taariibka lagu baqsaarin baa waayo wuxuu ka dhashay reer Saboola wuxuu markuu quriga iskoolka dhameeyay uu carara muxuu sameeyaa jaamacad ma dhigan karo cunugi ficiisa ay habarta dabka shidanaysa dhashay baa jaamacadii dhiganaya walaalayaal intii naas aqoon-yahana daliya dibad maanta ay maqlaysa ardadeena u soo jeensano waxaan idin leeyahay ardada 120ka sanadkan soo socda jaamacadda ha aado jaamacadda aniga waxa iga go'aanay inaan ardadayda ka soo qalin jabinaysa ku daro badda cas insha Allah waayo halka waxa la soo bandhigay riwaayadaas waxa ku jira gabdho xijaaban waxa ku jira wiilal islaamiyeed waa meel qofka bini'aadamka qofkiisa ku aamini karo waa Sheekh Axmed Aday wax ma reebin wuxuu yiri awal baa soo galdab shooftadu ka dhacay surwaalkii baa waxa loo diray Australia asoo khamrada cabi inoo yimid what is this bulay what is this waa maxay Soomaaliya ku hadlaynaa luqadda Soomaaliya ku shaqeyno anigu waan shaqeeyaa Soomaaliya ku shaqeeyaa waliga Ingiriis lama weydiin gaal ay yimidna gaal waliga wax ma weydiisan afkayga hooyaan ku hodmay naagaan dhaliyo mid ay ibi ka soo saaro mid aan tolo mid ay ilma ka soo qabto baa Ilaahay ugu risaqa ayax qubto way soo Axmed Sheekh risaaqada waa taala magaalada aan naga badan kalkaciya naga badan Puntland baa naga badan Soomaaliya naga badan ardayda ma yu tahriibin haday ardaw tahriibtana aqoon-yahankina u haysanaa halku waa inta markii la eego waxbarashada caadiga ah ee nidaamka hadda bilaabmatay ama hadda socota dadka reer goldogobka runtii waxa uu yihiin dad fiigar ama dad hormuud u ah kawaadirta jirtay ee reer goldogobka runtii wax maantay dal iyo dawladba la arko ama guud ahaan Soomaaliya iyo gaar ahaan deegaanada Puntland la arko runtii anoo taa ka ambaqadeena hadaladii la soo jeediyay ee runtii aan ognahay duruufaha dalkani uu ku jiro oo waxa la yiraahdo dhaqaale darrida iyo ay ka jirto tadaamun waxa ay taageertaa waxbarashada santa aan sheegnay jaamacadda badda cas kulliyada kala duwan bay leedahay sidii ay hormuudku hadda inoo sheegay oo kale marka kulliyadaha aan u aragno inay yihiin kulliyadaha aadka muhiimka u ah oo runtii aad loogu baahan yahay dalkan gudihiisa oo ay ka mid yihiin xanaanada xoolaha dad xoolo dhaqata xoolaha ugu badan baan leenahay ilaahay markii dawladaha carabta la eego aan ka mid nahay ama geeska Afrika marka la eego xoolaha ugu badan baan leenahay marka ayaga daaweyntoodii iyo ka warqabkoodii iyo xanaanayntoodii si loo taageero loo dhiirigeliyo oo markii horeba dhiirigelintiisa kuleejkii uu ku furmay xanaanada xoolaha ee gaalkacyo haddana jaamacadda ku biiray oo jaamacadda ka mid noqday kulliyadaasi xanaanada xoolaha iyo kulliyadda waxbarashada dhibaatooyinka kala duwan baa leedahay furaya iyo kulliyadda shareecada iyo qaanuunka oo runtii iyadana bayskii qofka islaamka ah saddex kulliyadood waxaan rabnaa ardada si gaar reer galdogob wax fatro furan ama xilli furan waxaan rabnaa inaan boqolkiiba 40 inaan arday kasta ka bixino tadaamun ay ka bixiso oo jaamacadda badda cas oo maanta gaalkacyo ka timid halka la joogta boqolkiiba 40 in ay ka bixiso annagoo u marayna systemka iskuulku qofku inuu soo qorto iskuulka uu soo maro la cadeeyo inuu iskuulka dhigan jiray warqad ka timid iyo qoraal ka yimid iskuulka kadibna tadaamun uu soo maro tadaamun markaas annaga jaamacad u gudbin doona hadii alla idmo warqad u qori doona qof kasta uu furan yahay
waxaan maalayaa jaamacaddan iskoolasho ku waaqaysay oo gaar u bixinaysay oo aan filayo iskuullada xalay aan tagnay oo kale oo Galdogob Secondary School iyo marka annagana tadaamun ahaan 40% waxaan bixinaa qof kasta oo kulliyadaha saddexa kulliyadood raba inay tadaamun ka bixiso 40% 60 kana waxaan rajaynayaa waalidiinta iyo dadka kale insha Allah taala ay taageeraan arrinta ku saabsan waxbarashada dhowr jeer baa laga dhawaajiyay waxaan isku dayayaa dawladda dhowr jeer wax loo dhawaajiyay dadka dibadda ku soo bartay dibadda waxa jira waxyaalaha horta waxay ka sheegayaan dibadda waxaan mudan 26 doolar sano ka maqnaa marka la fiiriyo waxbarashada ilaa PhD dibadda ku soo dhigtay halkan dadkii loo soo diraan ku jiray 2015 mashruuc waxaa jiray dawladaha Scandinavian-ka ay lahaayeen oo oranayay dadyoha laga diro Yurubta ha tagaan muddad micnaha hadii soo caawin karaan jaamacadaha soo caawiyaan iyaga bixinay shaqooyinkana soo kansalnay halkan bay u nimid runtii waxaan filayay iyo waxaan aragnay kala duwan yihiin bisarax yaani waxaan ka filayay anagu xagga markaan joogno Soomaaliya waxaan aad tusaa wadan burburay dad isdilaya dad micnaha gaajo u dhimanaya من فكرة حقادنا يعني أصلها ماشي عيد بنادم من ولا عنكره لكن هلك مركي ونمت هون جامعنا الله كلنا وأرضنا أرقني وهمي قدنا أرقني وهي تيك سنة فكرة أنك قبل نرندي فكرة قلدم بيعيد وحبرشة الصومالي سيد المودة معها حبرشة الصومالي بربر معها هذا يدين شيء يا بربر معها ميل دمتي معها فرصة جرا فرصة قارية ويان طبعا عقبة ويجران أباهن عقبة دوغنا بكجرا من ميل خاص الصومالي معها مركو حنا يرنتي فرصة باجد الصومالي فرصة عادية هين باجده وحن كعد سنة يا قفكي أباهن وقتها آخر يبوق وقري جرا نكل يراد مهاتير محمد مهاتير بوجيس مركي ملايسي أنتو سنقابن كهر iyo markuu Malaysia madax ka noqday caqabada ugu hortay maxay ahayd wuxuu yiri waxaan u imid weeray dad dhintay oo meeyda meel wuxuu ka sheekeynay shacbigiisu ka sheekeynay mustawa ay taagayeen ilaa uu gaarsiiyay ingiriiskina gumeystay weeray Malaysia markuu ka yaabisa u daadsanahay meyd sidan meyd u nahay buu shaqaale wuxuu ka doontay inuu keeno Shiinayski markaasuu hadan wuxuu raadiyay inuu tago Hindiya markaasuu wadankiina ku noqon minority wadankii baa la qabsay dad ma joogo sida kale aan ku badbaadin karno waxay noqdo waxbarasho marka Soomaaliya ay rid kale u furan ma jirto waxbarasho ahayn dadkuna dad tayada weeyaan ogaada dadka Soomaaliya dad tayada dad dun fiican la weeyaan waalidiinta khayr Allah si runtii caqabadaha soo mar wad garanaysaan ee meesha ka soo gudbeen aanu ducayno macallimiinta aanu ducayno rajadu way fiican tahay caqabadaha waa jiraan waa laga baxay in caqabada jiraan fiican bila caqabad soo ragal ma horumarku caqabadu la socdaa salaalaga jaamacada waxaan ka codsanayaa duwaal yaraad in bil isku yimaadaan arrimaha laga dhawaajinayo ku saabsan madadiyowga sawalka in laga tagin oo la ruuxo ma haysataan sida kale waxbarashada la hormariyo oo la soo caqabadaha jira hadii abaar jirto in jaamacada soo saar research ka soo looga bixi karo abaar jira colaadaha jira soo looga bixi karo jaamacadu weyn ka yimaado ikhtiraacani fikirkan marka aad baa idin salaam ya salaati maqrab la aadamay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh